السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. واد بان idin salaamaya saaxiibayaal halkan waa channelka xogta dalka ku soo dhawaada saaxiibayaal warka xogta dalka qodobada aan idin soo gudbinayo waxa ka mid noqonaya faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax lala eegtay ciidamo Ethiopian ah maamulka Somaliland oo maanta diiwaan gelisay kiisas cusub oo caabuqa COVID-19 dad lagu arkay calaamadaha COVID-19 oo ku geeriyooday gudaha magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug xarakada Al-Shabaab iyo waliba ciidamada dawladda Soomaaliya oo dagaal ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobolka Bay ciidamada dawladda Soomaaliya oo la wareegay deegaano dhowr ah ku yaala qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan xildhibaano ka tirsan maamulka Hiirshabelle oo sheegay in madaxweyne Waare uu ka diiday in lala xisaabtamo waxaan mar kale saaxiibayaal taariikhda maanta waxay ku beegan tahay 27-ka bisha May sanada 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xulan saaxiibayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilaabno saaxiibayaal faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia gaar ahaan kuwa howlgalada magaca howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxa lagu soo waramayaa in degmada Qahansax dheer ee gobolka Bay la eegtay qaraxa nooca miinada qaraxan oo la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa la beegsaday gaadiid ay wateen ciidamo Ethiopian ah gudaha degmada Qahansax dheer waxaana la sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac dadka degmada Qahansax dheer qaarkood ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen joogta qaraxa iyo waliba rasaasta fara badan oo qaraxa kadib ay rideen ciidamo Ethiopian balse ay inta badan ku baadigoobayeen dadka ka dambeeyay qaraxa nooca miinada xarakada Al-Shabaab ayaa war markaasi lagu daabacay barta internetka waxa ay ku sheegeen in mas'uuliyadda qaraxaasi ay iyaga sheegteen ayna gubeen mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Ethiopia inta badan gobolka Bay iyo waliba gobolka Gedo meelo ka mid ah ciidamada Ethiopian waxa ay ku sugan yihiin halkaasi waxaana badi ka dhacaa weeraro toos ah waliba qaraxyo ee lala eegta inta badan ciidamada Ethiopianka iyo waliba kuwa Kenyaatiga ah ee ku sugan qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya wayahay saaxiibayaal dhinaca kale haddii aynu eegno bal maamulka Somaliland waxay maanta diiwaan gelisay kiisas cusub oo caabuqa COVID-19 wasaaradda caafimaadka maamulka Somaliland ayaa maanta shaacisay natiijada dad loogu shakiysnaa cudurka safmarka ah ee COVID-19 kuwaasi oo baaritaano lagu sameeyay qaarkood laga helay inay qabaan caabuqa COVID-19 warka soo baxay guddiga maamulka Somaliland u qaabilsan xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa la sheegay in dadka la baaray 8 ka mid ah cudurka laga helay kuwaasi oo haatan ku jira xaalad karantiin ah halka 2 qof kalena cudurkaasi ay ka bogsadeen dadka cudurka laga helay oo isugu jira 5 rag iyo waliba 3 dumar ah ayaa waxa ay dhammaantood ku sugan yihiin gudaha magaalada Hargeysa oo kiisaska ugu badan laga helay waxaana cudurka laga helay ay daadooda u dhaxaysa dadka gaaraya 29 sano ilaa iyo 59 sano jir ugu dambeyntii guddiga waxay sheegeen in tirada guud ee cudurka COVID-19 laga diiwaan geliyay deegaanada maamulka Somaliland ay gaarayso 225 ruux halka 23 ruux ay ka bogsadeen halka 17 ruux ay u geeriyoodeen caabuqa safmarka ah COVID-19 isla wararka COVID-19 ayaan ku guda jirnay dad lagu arkay calaamadaha COVID-19 waxa ay ku geeriyoodeen gudaha magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxa maanta dad hor leh oo lagu arkay calaamadaha cudurka COVID-19 ee ku geeriyoodeen isbitaalka weyn ee gudaha magaaladaasi kuwaasi oo ah dad markaasi da'aha madaxa caafimaadka isbitaalka degmada Cadaado Cabdi ayaa sheegay in dadkaasi lagu arkay astaamaha lagu garto qofka qaba cudurka COVID-19 isla markaana labada ruux ee geeriyooday ahaayeen rag iyo waliba haweenba waxa uu sheegay in magaalada Cadaado toddobaadkan dadka lagu arkay calaamadaha cudurka COVID-19 ay gaarayaan 8 ruux isagoo oo dalbaday in gurmad degdeg ah dadka magaalada Cadaado ay u baahan yihiin dhinaca kale wararka aynu helayno ayaa waxay sheegayaan in diyaarad sida gargaar caafimaad kala timid maamulka Galmudug dowladda federaalka Soomaaliya waliba ganacsato reer Cadaado ah oo ku sugan gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa ay markaasi go'dhow loo daabulay gudaha magaalada Cadaado waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda markaasi ay soo gaaraan agabka loogu talagalay in looga hortago caabuqa safmarka ah COVID-19 caabuqa COVID-19 dad badan oo gobolada ku nool ayuu saameyn togan ku yeeshay waxaana lagu soo waramayaa in deegaanada maamulka Galmudug iminkanba uu ku sii fidayo caabuqa COVID-19 xalay magaalada caasimadda Muqdisho shir ay ku qabteen guddiga ka hortagga COVID-19 ayaa waxaa shir gadoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaana badi uu ka hadlayay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan dadka ku dhibaataysan
gudaha magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug ka tirsan. Wayay saxbiyal markan haddii aynu eegno ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba xarakada Al-Shabaab waxay ku dagaalameen qaybo ka mid ah gobolka Bay. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay guul ka gaareen dagaalkaasi inta badan ay ku qaadeen xarakada Al-Shabaab ka jooga qaybo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waxa ay howlgal ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada Diinsoor ee gobolka Bay iyaga oo dagaal markaasi la galay xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Wararka la helay waxay sheegayaan in ciidamada iyaga oo howlgal ka wada deegaano markaasi hoos yimaada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay arkeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab isla markaasna halkaasi oo ka dhacay dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo waliba dhaawac. Howlgalka ayaa waxaa horkacayay mas'uuliyiinta maamulka degmada Diinsoor waxayna sheegeen in Al-Shabaab ay ku dileen 2 xubnood oo ka tirsan sidoo kalena ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalka ay la galeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Dad ku sugan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay balse diiday in sababa amni dartooda magacooda iyo waliba codkooda loo adeegsado iyo warbaahinta waxay u sheegeen in maamulka degmada Diinsoor uu gudaha degmada ku soo bandhigay meydadka 2 xubnood oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. wararka ugu dambeeyay naga soo gaaraya degmada Diinsoor ayaa waxay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan ha yeeshee ciidamada dowladda Soomaaliya wali kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wadaan howlgallo kala duwan kuwaasi oo ay ku baacsanayaan dhaqdhaqaaqa Shabaab. Wayay saxbiyal markan haddii aynu eegno xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay sheegeen in xukuumadda ay afduubatay baarlamaanka Soomaaliya tan iyo markii xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ay sheegeen in 27ka bisha June ay guddiga doorashooyinka qaranka hor imaanayaan. baarlamaanka ayaa waxaa jirtay dalaacaan ay guddiga kala kulmayaan siyaasiyiin waliba xubno ka tirsan beesha caalamka kuwaasi oo u arkay in madaxda dowladda Soomaaliya wadaan qorshe ah in muddo kororsi ah. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa dhinacooda ku kala qaybsamay go'aanka guddiga waxaana qaarkood ay sheegeen in xukuumadda ay bilowday inay afduubatay kuraasta xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi oo markii la gaaro doorashada inta badan lagula xisaabtamo. xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ee ka soo gala baarlamaanka ayaa sheegay in xukuumadda ay soo qorotay qaabka xildhibaanad ay ku soo baxayaan isla markaana dad gaar ah meel lagu aruursaday sidoo kalena dadka gobolada waqooyi ka soo jeeda aysan u madax bannaaneen inay kuraastooda markaa doortaan. waxa uu sheegay inay u yimaadeen xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada una sheegeen qorshaha ay damacsan yihiin ee ah iyaga oo ay soo xushaan xildhibaanada ka soo jeeda baarlamaanka gobolada waqooyi ee loo yaqaano maamulka Soomaaliland ha yeeshee taasi ay diideen. mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid yahay xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Beene ayaa ka hadlay arrintan waxaana uu sheegay in shaqada baarlamaanka ay afduubatay xukuumadda isla markaana muhiimad gaar ah ay siinayaan. Wayay saxbiyal markan haddii aynu eegno ciidamada dowladda Soomaaliya waxa ay la wareegeen deegaano dhowr ah ku yaala qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. dowladda Soomaaliya waxay saacadihii la soo dhaafay waxay howlgallo culus ay ka sameeyeen deegaano waliba degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in inta howlgalka ay ku jireen ay dileen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab sidoo kalena ay la wareegeen deegaano waliba fariismo dhowr ah ay ku sugnaayeen xarakada Al-Shabaab. taliyaha guutada 22aad ee taliska qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaashaale dhexe Maxamed Xasan Ibraahim ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano ay ka mid yihiin Afcad, Ceelbacad waliba Aboorey kuwaasi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab laga fulinayo deegaanada waliba degmooyinka gobolka Hiiraan ka tirsan ilaa iyo laga saaro qaybaha ay ka joogaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan xarakada Al-Shabaab. wararka ugu dambeeyay naga soo gaariga deegaanada howlgalka laga fuliyay ayaa waxay sheegayaan in xaaladda saaka ay tahay ilaa iminkanba ay tahay mid degan isla markaana ciidamada dowladda Soomaaliya ay wali howlgallo markaasi ay ka sameynayaan xaafado iyo waliba degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan. Wayay saxbiyal ugu dambeeyay haddii aynu eegno xildhibaano ka soo jeeda maamulka Hirshabelle waxa ay madaxweyne Waare ku eedeeyeen in markaasi uu ka diiday isla xisaabtan dhaba. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka maamulka Hirshabelle waxa ay maanta warbaahinta kula hadleen gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ay sheegeen in madaxweyne Waare uu diiday inay wax ka weydiiyaan waxa lagu qabtay lacagtii dowladda Soomaaliya ee ku wareejisay maamulka Hirshabelle.
xildhibaan aadan cabdi faarax kala dire oo ka mid ah xildhibaanada hadlaya waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha maamulka Hirshabelle in madaxweyne Waare uusan bulshada la wadaagin lacagdan 142,000 oo dollar oo dowladda Soomaaliya ugu talagashay wax ka qabashada fatahaadaha deegaanada maamulka Hirshabelle gaar ahaan gudaha magaalada Beledweyne. waxaana xildhibaanka shaki uu geliyay in lacagtaasi ay ku jirto gacanta madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay u soo dirto guddi baarayaal ah oo lacagtaasi ogaanaya. guud ahaan saaxiibayaal warkaad kala socoteen channelka xogta dalka waa nageynta adigo Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa idin socodsiinaya saaxiibayaal nooli kulanti